Chief Caaqil Cabdilaahi Maxamed Deeg oo kamid ah xuqaasha gobolada SSC gaar ahaan Chief Caaqilka guud ee beesha Guuleed Garaad oo maanta warbaahinta kula hadlay deegaanka Woodwood ayaa fariimo kala duwan u diray maamulka Hargeysa iyo beesha deegaankaasi degta ee Guuleed Garaad. aad u dadaasha bulshooyinka Soomaaliyeed meel joogto inay gaarsiiso warka iyo wacaalaha jira. waana idinku ducaynayaa dadaalkaad ku jirtaan waana idinku hambalyeynaya oo idin bogaadinayaa qodobka bogaadinta salaanta qodobka kale waxa weeyaan waxaan la hadlayaa maamulka Musabbixi iyo Maxamed Kaahin gobolada waqooyi Hargeysa madaxdiisa ay joogaan madaxda ka yihiin waxaan leeyahay nimayow dadku wuxuu yahay waa garanaysaan haddii aqli jiro Soomaali waxay isu tahay ninna loo sheegi maayo Soomaalina way istaqaan dadaan 30 gaarin baa ka takooran waad ka mid tihiin waana isyeeliyeen ciidamada idinka wadaad Soomaali ku baabiinaysa 30 iyo 4 sannadood dad wada madaxalaha haysi 34 taasoo aqoonsi keer kan goonistaag horbayn keer ummadda xornimadoodii ka taxaysan oo magacyo jiru bixiseen Soomaaliland u bixiseen markii magacii gumaysigu ku gumaysan jiray baad ku celiseen markaasaad u tusteen inaydun idinku yani ma wadaan ama wanaag wadaan dadkuna bulshadu haddii sun lagu siinayo sunta kiida ay daleen ka midka uu siinayo marka hore dhanafta muddo dheer waa baabaasanaya. Chief Caaqilka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay isla markaasina bayaamiyay in shakhsiyaad maamulkaasi uga yeero Hargeysa oo kamid ah gobolada SSC aysan marnaba xaqiiqda deegaankaasi ka turjumi karin isla markaasina ay xilligani soo dhamaatay shakhsiyaad wax loo soo dhiibo oo dadka madaxa isku galaya. halka qodob ay iga dhiman 30 sannadood iyo 5 sannadood dabada ka soo rixaysan koox walbaanta khufaf kamid oo soo diris وميزانية ومدة United Nations يبدأ أي حق ولا يجي فنقر كمية أنت تصوص سنة ولا جرتي ولا نسير أرد يسكسو تيرا بالبانتة معاشنا كمية نهرين دلنا كمية نهرين دتنا كمية نهرين والله يقول كل ما يدخل كل ما Chief Caaqilka ayaa ugu dambeyntii digniin u diray beesha uu caaqilka u yahay ee Guuleed Garaad xilli deegaamada beeshaasi qaybo kamid ah oo tiro yar ay ka socoto wax lagu yeeray isdiiwaan gelinta maamulka Hargeysa waxaana kamid ahaa hadaladii Chief Caaqilka sida tan. waan jeedinaya baaqas wax weeyaan waxa maanta dhacay wuu ka dhacaya haday doorasho tahay day dad la isku soo magacaabada la isku bedelay oo barkada tahay haday dad soo sharaxay tahay من وراك سامايا عاوي عيالي وينقرنا تاود عندك كقصة نولي وقرنايا قوري أربع حرقة يسوس مرة قياسي يقول بمين كلام بارد ويدي قلت قرنا هذا يسوع قوات عيالي حرقة سوحانة يكمل لي تان هذا هوي وحان الله يعني مسد الضرورة هذا الله إنه شيء إنه مقالة إنه قوي شغلنا وده تشنكر وينه كده بركة أنت سباق جاي أنت سباق اللي كل ما رواي وعم دور كده يا ساك سقى وبينه يقول أرض الله ضيع نقول معروف كم علي أروح كل شيء يحكم بدونه أنت ليك لما كده اللي يرى عقاشة يقول تقرب الله ضيع ده يرغون يمير يرغون عبد ولا سري سيلعب سوريا يكون بمانيا بس سياسيين بقى مدقن بقى ما محي وعن سكير سنة سو مقعابة يمر بحول حقوق بدري يا يبدل ما ودو ده مدقن بقى دورة شيء كان ديوان قليل انت معي كقرية الصور كيبا كحلة سومالي اللي هالمركة عينه كوشي انه هدف كقود من لماذا ومضى مركة انه كوشي انه حرام تحتاي سميستين انه حتى كوشي انه حكايشي انه مركة سينو هلغي يسكرها دورة شرفرات لكن نمان كوحوضة كوه قلين ايش عمبارك لفتي سكوتيتا وتستار كيوة تيلو الفروع وباش يدعي وحراي بعدو حتى ناس هذا اللي ترتم باللقري يا قوة دورة شرف الحرم
kuwa doorashada sharaxan kuwa uqaasha kuwa maalqabeennada ee dabada ka riix waxaan idin leeyahay waraaid su'aadi markadna Allah idin ka dhigo wixii la idin doortana Allah idin tuso markada hore tala ka gaara intaas aan adeer kaga tegayaa hadda waa ku mahadinayaa markadna waxaan leeyahay maanta waxa taagan wax ka qaban waxaydaan wax ka qaban gureed garaadnimadii meeshay ku dhacday fardahooda ninkii oo ka qaaday rusha chief caaqilka guuleed garaad ayaa ugu dambeyntii waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay faahfaahinta uu ka bixiyay macnaha diiwaangelinta iyo qorshaha maamulka Hargeysa ka leeyahay diiwaangelin ka dhacda ama sanaaduq la keeno deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn adeer waxa weeye diiwaangelinta nimanka gaalada ee diiwaangelintan wata iyo kooxda siyaasiyiinta isu taqaana Soomaaliland xukunta waxay uga jeedaan jiray ku badsanayaan iyagu ay ku raadsadaan waxaanu nahay intaas oo milyan meelablaan nala socota hay-adu lacagta hana siiyaan lacagta hana lagu siiyo Wilwood Buuhood Xudud Taleex Dhulbaante area ilaa dunku qooq baan joog ana lagu siiya dhaqaalaha dawladsigaas ay kuwaas uga jeedaan كان دالني تاريخ يديه لغا خيري دربي دغا حالو دغاي دعنا ان بخي كريم ما كدا والناس سيدان